السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق ميل كستا joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Jumala Channel magacaygu waa Jamiile Axmed maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc aad u qiimo badan fasaxa iyo hooyooyinka mowduuceena maanta waxa waaye fasaxa iyo hooyooyinka yani fasaxa ilmaha la soo fasaxo xilliyada fasaxa iskuulada ama dugsiyada hooyooyinka inay sidii ugu faa'iideysan lahaayeen maxaan hooyooyinka u dooranay caruurta maadaama aabuhu uu joogo hooyooyinka kaliya maxaa maanta u doorta aniga hooyooyinka waxaan u doortay waxay tahay hooyadu waa qofka kaliya waqtiga ugu badan ilmaha la qaato hooyadu waa madrasada koowaad ee ilmaha ka soo baxaan hooyadu waxa kale oo lagu tilmaamaa inay tahay warshad waxbay soo saartaa waxay doontaa noqoto nooc rabtaa ha ahaato hooyada marka maxaa warshad loogu tilmaamay waxay tahay hooyadu waxay soo saartaa bashar waayo ilmahan guriga joogo ama iyadu ay dhashay waxa waaye qofka kaliya ee wax ka bartaan hab dhaqanka qaabka u noolaa lahay cunugan iyo qaabka uu dhaqmi lahay qofka uu ka baranayo waxay tahay hooyada يعني hooyada qiimaha leedahay meesha horta kuma soo koobi karno laakiin waxaan rabaa mowduuca hooyooyinka sidii uga faa'iideysan lahaayeen fasaxa caruurta inaan uga hadlo haddii aad tahay hooyo u faa'iiday caruurtaada yani hooyo caruur u joogto haddii aad tahay waa inaad u faa'iideysaa caruurtaada uga faa'iideysaa dhan kasto waxbarashada hadday tahay haddii dhaqanka iyo hidaha Soomaalida ay leedahay ay tahay ilmahaaga waa inaad u faa'iideysaa wax bartaa xilliga kula joogan ha sameynin waxyaabahan ha u dirin banaanka xilliga fasaxa ilmaha banaanka ha u dirin hooyooyinka waxay sameeyaan ilmaha orod soo ciyaar iska dhaa khaasatan wiilasha dhibkooda ay nacayaan markaas waxay sameynayaan banaanka u dirayaan ha ku mashquulinin TV ama mobile hooyooyin qaar ma jecel ilmahooda inay banaanada aadaan laakiin waxay sameeyaan qolay intee ku soo xiraan TV u daaraan maanta oo dhan waqtigiis wuxuu ku qaadanaa TV-gaas ama mobile loo dhiibaa mobilka iyo TV-gana dhibaatooyin badan ay leeyihiin ilmaha caqligooda iyo caafimaadkoodaba hoos u dhigaa saas darteeda ka joojiya okay maxaan sameynaynaa marka haddii aan ilmihii TV ku mashquulin mobile aan u dhiibin banaankiina aan u dirin waa dhibayaan kama shaqaysan karo saan yeelaa samee arrimahan soo socda marka hore ha dhibsanin caruurtaada yani ha dhibsanin caruurtaada waxa ula jeedaa hooyada ilmaheeda ayada dhashay ma aha inay neceb tahay laakiin markii ilmihii la soo fasaxo guriga ay joogaan hooyo 4 caruur ugu yaraan 4 caruur ay ka tagi jirtay waxbarasho ka aadi jirtay ama 5 iyo ka badan loo soo fasaxay guriga imaadaan waxa dhacayso in ilmihii ay isdilaan iska dacwoodaan wax qasaan wax ku dheelaan hooyada ay jahwareerto yani ee tiraado maxaa loo soo fasaxay kuwaan dhib badanaa xilliga fasaxa iska dhaaf waxa arkaysaa xilliga waxbarashada ay jiraan ilmaha ee subaxi ilaa 5 galabnimo ilmaha ay mashquulsan yihiin guriga laga yaabo daqiiqado yar inay joogan amse eeba jooginba guriga dhanbo markaas khamiista iyo jimcaha guriga ay joogaan marka 5 maalin ay ka maqan yihiin hooyooyinka ilmaha ee khamiis iyo jimca joogan hooyooyin waxa arkaysaa dhahayo khamiis iyo jimca meel la geeyay ma jirtaa aan geeyay waxbarasho kama aha laakiin waxay nacaysaa intaas dhibka ay dhibayaan waa dhibsanaysaa yani dhibkooda marka maxaa laga rabaa marka u diyaari qorsho aad ku mashquulin lahayd ilmihi lagu soo fasaxay haddii adiga ilmahan mashquulinin aday kugu mashquulayaan marka waa inaad u diyaarisaa qorshihii aad ku mashquulin lahayd ilmahan haddii aan ahaan lahayd waxyaabo dheeraada u faa'iideynaysid oo Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo hidaha aad barayso haddii ay ahaan lahayd waxbarashadooda inaad u muraajacaysa oo u sii wado waa inaad u sameysaa qorsho sidoo kale u sameey jadwal maalinle ah oo ku wadi kartid barnaamijka maxaa yeelay shaqada aad qabanaysid haddii aad jadwal u sameysan ma wadi kartid wixii dhan wax isaga ka noqonayaan dhexyac macnaha shaqadii gurigii oo laga rabay waajibaadkeeda inaad gudato
iyo shaqo kale kusoo kordhiso ah ilmihiina u faa'iideyso waqti siiso. Marka waa inaad jadwal samaysataa, warqad weyn derbiga ku dhigsataa, maalin kasta wixii aad qaban lahayd, wixii aad adiga carruurtaada suubin lahaydeen. Ilmaha naftirkooda waxay ku baranayaan jadwalka iyo qaabka shaqada loo qabsado iyo wax in la nidaamsado ay ku baranayaan. Si darteed waa inaad u samaysaa jadwal marka. Tartan ka dhaxaysii carruurtaada si ay uga soo baxaan waajibaadkooda. Waxba u dirtay ama ha noqoto waxbarashadii cashiraa ka rabtaa oo kaleetood ama waxyaabo kala bartay waxaa rabtaa inay bartaan ama guriga shaqadiisii yaa rabtaa inay bartaan gabdhaha kaleeto hawsha inay ku qabtaan. Waa inaad tartan ka dhaxaysiisaa marka ilmaha oo tiraahdo haye yaa ugu soo hormaraya yaa qabanaya tartan ka dhaxaysii marka si abaalmarin markii ay guuleystaan. Tartankii aad ka dhaxaysiisay waa inuu abaalmarin leeyahay. Hadduu abaalmarin lahayn macna ma samaynayo tartankaas. Marka ay guuleystaan warka waa inaad siisaa abaalmarin. Ku ammaan waxbarashadooda. Waxa ay baranayaan haddii tahay hawsha guriga, waxbarashadii, quraankii waa inaad ku ammaantaa tiraahdaa maasha Allah hata waa fiicanta hadduu qalda xataa cunuga. La qaado waqti xilliga cashirka aan jirin sida khamiistii jimcaha oo kaleetood. Qasab maaha maalin kasto 7 maalin inaa ilmaha waxbarasho kaliya ku mashquulisid. Maalmaha fasaxa waa inaa waqti la qaadataa. Uga sheekay sheekooyin faa'iido u leh carruurta ama la ciyaar. Maalinkaas marka labadaas maalin oo fasaxa haddii ay tahay khamiistii jimcaha ama maalmo kaleetood waa inaa marka u faa'iideysaa sheekooyin u sheekaysaa ama la ciyaartaa. Ilmaha aad u jecel yihiin ciyaarta waalidka iyo sheekooyinka waalidka. Isku day marka inaa waqti la qaadato si aad u koriso maskaxda carruurtaada. Haddii aad talaabooyinkan qaado waxaan hubaa inaad guuleysan doontid carruurtaadana ay ka faa'iidi doonaan insha Allah. Waxa aad noqonaysaa hooyo wanaagsan carruurteeda iyo bulshadaba ay ka faa'iidaan. Barnaamijkeena mawduuca halkaas aan kusoo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddii aan ugu cusub tahay subscribe kadibna gambaleelka furo si aysan ku dhaafin muuqaaladan soo gelin doono. Haddii aad hore noola joogi jirtane like insha Allah. Like naga bakhiilna insha Allah asxaabtaadana u sii share garay si ay uga faa'iidaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.